kulan waxaan daawadaan kusoo dhawaada wararka Calandoon TV. muwaadin Soomaaliyeed oo lagu dilay dalka Koonfur Afrika. UK oo taageero u ballan qaaday maamulka Galmudug. madaxweynaha Jubbaland oo sheegay in la isku firi doono magaalooyinka xorta ah. maamulka Koonfur Galbeed oo guulo ka sheegtay dagaal ka dhacay gobolka Bay. fadlan haddii aad ku cusub tahay channelka subscribe saaro si aad u hesho wararkii ugu dambeeyay gudaha dalka iyo caalamka. muwaadin Soomaaliyeed ayaa lagu dilay dalka Koonfur Afrika iyadoo maalmihii ugu dambeeyay ama bilooyinkii ugu dambeeyay ay kordheen dilalka dadka Soomaaliyeed loogu geysanayo Koonfur Afrika. koox weesan oo burcad Koonfur Afrikaan ah ayaa gudaha dalkaasi waxa ay ku dileen muwaadiniin Soomaaliyeed oo kamid ah Soomaalida ganacsiyada waaweyn ku leh dalkaasi iyaga oo goobta ka baxsaday. muwaadiniintan Soomaaliyeed oo lagu magacaabo jiray Xamuud Aadan Dhiblaawo ayaa kooxda burcad ah waxa ay ku dileen goobtiisa ganacsi oo ku taala dalka Koonfur Afrika isaga oo u geeriyooday dhaawac culus oo burcad ay gaarsiiyeen. mid ka mid ah Soomaalida ku nool dalka Koonfur Afrika ayaa sheegay in gurmad ay u sameeyeen muwaadinkan Soomaaliyeed oo kooxda burcadda ah ay doonayeen inay dhac u geystaan isla markaana ay ka badbaadiyeen walow kooxda burcadda ahayd ay muwaadinka Soomaaliyeed dileen. ciidamo ka tirsan booliiska Koonfur Afrika ayaa tagay halka dilka uu ka dhacay kuwaas oo badi markii ay dilalka dhacaan sameeya howlgallo walow aysan ku guuleysan inay soo qabtaan kooxdii dilka ka dambeysay. dalka Koonfur Afrika ayaa waxaa sanad walba dil iyo dhac loogu geystaa muwaadiniin Soomaaliyeed oo halkaas ganacsiyo kala duwan ku leh iyadoo dhibaatooyin kala duwan dalkaasi loogu geysto muwaadiniinta Soomaaliyeed. UK ayaa taageero waxa ay u ballan qaaday maamulka Galmudug oo ay sheegtay inay ka taageeri doonto dhinacyo badan. madaxweyne ku-xigeenka maamulka Galmudug Cali Daahir Ciid ayaa la kulmay safiirka dowladda UK u fadhiya Soomaaliya mudane Pen Ferder. labada mas'uul ayaa ka wada hadlay xaaladda guud ee dalka Soomaaliya iyo sare u qaadista mashaariicda horumarineed ee hay'adaha ay ka wadaan deegaanada gobolka Galgaduud. Ambassador Pen Ferder safiirka UK ee Soomaaliya ayaa hoggaanka dowlad goboleedka Galmudug ku amaanay shaqada fiican ay ka qabteen muddadii yareed ee xilka hayeen wuxuuna ballan qaaday in UK ay si dhow ula shaqeyn doonto Galmudugta cusub ee uu hogaamiyo madaxweynaha Axmed Cabdi Kaariye. madaxweyne ku-xigeenka Galmudug mudane Cali Daahir Ciid ayaa maalmahan ku sugnaa magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya waxa uuna kulamo ula yeeshay beesha caalamka isagoona diiradda saaray hay'adaha horumarinta caalamka iyo xarumaha ka sameystay Galmudug si ay uga qayb qaataan horumarka dowlad goboleedka Galmudug. Galmudug ayaa waxaa fari u ah hay'ado kala duwan kuwaas oo mashaariic kala duwan ka fuliyay halkaasi iyadoo hay'aduhu ay sheegeen inay sii wada doonaan shaqooyinka ay ka wadaan deegaanada Galmudug oo ay ku sugan yihiin. madaxweynaha maamulka Jubbaland oo tababar u soo xiriyay ciidamo ka tirsan kuwa Jubbaland ayaa sheegay in la isku firi doono dhawaan magaalooyinka xorta ah ee ka tirsan maamulkaasi. madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madow ayaa tababar u soo xiray cutubyo ka tirsan ciidamada daraawiishta maamulka Jubbaland. ciidamada oo si gaar u tababaran ayaa ka qayb qaadanaya howlaha ka dhanka ah la dagaalanka Al-Shabaab ee deegaanada Jubbaland. madaxweynaha ayaa sheegay in la isku firi doono magaalooyinka xorta ah sidoo kalena ay ciidamada qaadi doonaan howlgallo ka dhan ah deegaanada ay Al-Shabaab ku sugan yihiin. ciidamada tababarka loo soo xiray ayaa sidoo kale loo dhameystiray dhammaan agabyadii ay u baahnaayeen oo ay ka mid yihiin gaadiidka ay ku dagaalamaan iyo aabayaal labaduba ay ku dayacan yihiin oo shabaab ay dhan walba u diideen. idinkoo dhalinyaro maanta u badan waxaan rajeynayaa howlgalkaasi inuu ciidankaani afmadow iyo isu furo Kismaayo idinka iyo ciidanka kalena hal mar la isla bilaabayo oo la isu furo Jilib iyo Kismaayo labadaba. inaan isku tashanno oo inagu aan diyaar garowno oon howlgalkaas ka dhabaynaay waxay waxtar u tahay dadkeenna. maanta hooyada gosha ku umusha ama hooyada maanta gosha dhibaatadu ku gaadho waxaa adag inay isbitaal hesho. dowladnimo innaga inooga sugaysaana ma jirto. waxaan rabaa inaad ka dhabaysaan tababarkii la idin siiyey tijaabisaan shaqada la idiin diray aada fulisaan aanan isla garanno saacaddan laga bilaabo howlgalkaad gelaysaan inuu yahay mid aan rabno inaan dhulkeenna ku xoranno nimankaana aan waddanka kaga xorayno haddii ilaahayna
howlgalkaasoo diyaar uma tiidin waan idinku iman doonaa jiidda haddii ilaahay idhaah kaba warwareegi doono inaan idinla galo dagaalka iyo inaan imaado meesha ugu horreysay wax ka dhacayaan intaana waan idinka ballan qaadaya aan ku sawirno on ku dulqaadanno waxa dadkeenna aynu u tarayno waxaad ogaataa qabiil inuuna qofna meel geynaynin oday iyo hebel baa iyo kana sidan aanayna qofna meel geenaynin waxaan soomaalinimo ku weynay wax meel kale kuma helayno aan iyada ilaalino oo aan dadkaa u gargaaro oo hawshaa aan qabanna haddii ilaahay idhaah maanta laga bilaabo lama odhanayo dugsigii iyo qoladii dhiboog ahayd iyo qoladii tababarka ku jirtay ee waxaa tihin ciidan magaca leh ciidan waxa ugu muhiimsani waa amar kala qaadashada iyo dishbiliinka labadaa inuu ilaaliyo haddii ayna amar qaadasha jirin waad aragtay bahashan quraanjada ay guuraysa isdaba socota say u socota hal mid baa istaagi way wada istaagaysaa wax soconaya male innagu cod dheer ba wax isku maqashiinaya iyago cod dheer waxba iskuma maqashiinayaan haddana saasay kala dambayntooda u jirtaa amarka in la kala qaato iyo in la ismaqlo iyo in dishibliin ciidanku uu lahaado yaa waxay ka muhiimsan tahay qofku inuu geesi yahay iyo inuu wax walba tariyo inuu wax walba yahay intaas taasaa ka muhiimsan ha la ilaaliyo dishibliinka waxa ugu muhiimsan waa amar qaadashada haddii kala dambeyn la-aan ay jirto waxaa la yidhahdaa kala dambeyntu 12 qof oo debdemis ah dab kacaya hadday u yimaadaan 12kaa qof si fudud bay dabka ku demin karaan laakiin haddii magaalo dab kacaysa lagu sidaala hala demiyo waxaa laga yaabaa mid inuu gaas ku shubo midna biyo ku shubo midna ciid ku shubo midna dhar ku shubo dabkaas inuu sii ololaa laga yaabaa laakiin 12kaa qof ee ismaqlaysa halkaa waxaa ku shub halkaas saare halkaas saasle si fudud bay ku demin karaan taa markaa aan sidaa ugu xisaabtano waxaan isugu iman doonaa janaax cabdallah haddii ilaahay idhaah hadalkan hadalka xiga janaax cabdallaan ku kulmaynaa haddii ilaahay idhahdo iyadaana ku wada hadlaynaa markaasaan idinkala hadli doonaa maxaa jira say waxu jiraan xaaladda ka warrama xaggeen u soconnaa maxaan samaynaa saasaan yeelaynaa haddii ilaahay idhahdo ballanteennu safarkan markaan ka soo noqdo haddii ilaahay idhaahdo iyo janaax cabdallaan ku kulanno oon idinku imaado maamulka koonfur galbeed ayaa guulo waxa ay ka sheegteen dagaal ka dhacay gobolka baay oo ay la galeen al-shabaab dagaalkan oo u dhexeeyay ciidamo ka tirsan kuwa maamulka koonfur galbeed iyo xubno ka tirsan al-shabaab ayaa waxa uu ka dhacay deegaanka hoostaga degmada Dinsor ee gobolka Baay gudoomiyaha maamulka degmada Dinsor ayaa sheegay in xubno ka tirsan al-shabaab ay ku digeen dagaal ka dhacay deegaanka laba warood oo hoostaga degmada Dinsor sidoo kalena ay ku burburiyeen xarumo ay leeyihiin al-shabaab gudoomiye Cabdisalaan Xaaji Siido Maxamed ayaa sheegay in dagaalka uu ka dambeeyay kadib markii ay qaadeen ciidamo ka tirsan dowladda iyo kuwa koonfur galbeed kadib ay heleen xog ku aadan in al-shabaab ay deegaanka laba warood isugu aruursanayaan howlgalka ayaa waxa uu ahaa mid hore aan loo sii qorsheyn waxaana ku guuleysanayna waxaana sii wadi doonaa ka hortagga iyo xaqiijinta amniga guud ee degmada ayuu yiri gudoomiyaha muddooyinka ugu dambeeyay maamulka koonfur galbeed ayaa waday howlgallo ka dhan ah la dagaalanka al-shabaab iyadoo deegaano ka tirsan goobaha ay ka harimeen maamulkaasi laga saaray al-shabaab dhowr deegaan oo ka mid ah gobolkaasi ay weli ku sugan yihiin xubno ka tirsan al-shabaab guud ahaan wararka Calaamtoon TV waa naga